maalin wanaagsan. Maanta waxaan rabaa inaan mid kale oo ka mid ah qisooyinkii aan ka qabtay basaaskii fadhin jiray waddanka Talyaaniga magaciisu ahaa Xuska. Xuska wuxuu ii sheegay 2011 mid ka mid ah howlgallada uu asagu sameeyay. haddaba markaan xusayo dhacdooyinka ninka odayga oo Xuska magaciisa aan kusoo koobay waa kuwa aan asaga ka soo xiganayo, kuwana asaga ama dadkii kale oo ay isla falgaleen baa qayb ka noqonaya. haddaba sheekadan hadda soo wada nin kaloo ka mid ah ragga uu howlgalku dhex maray oo aan asagana wax ka weydiiyey baa ii xaqiijiyey. sheekadu haddaba waxay oranaysaa, Xuska wuxuu yiri waxaan ku laabtay waddankii anoo howlgal u baxay. kulaabashada waddanka aan ku laabtay waxaan tagay Muqdisho. waxaan haystaa 2 toddobaad inaan halkaa joogo. warbixinna aan wadaan gudbinayay. markaan soo laabanaya waxaan ka war helay mid ka mid ah ragga aan saaxiibada ahayn oo reer Muqdisho isla ahayn oo markaas ahaa agaasime oo wafti 3 qof ka kooban halaha 3 qof ka kooban ay u baxayaan maalinta berri ah waddanka Kenya, halkaasoo shir 3 maalmood ay ku leeyihiin. anoo ka faa'iideysanaya baan waftigii ka mid noqday. 3 maalmood la joogay kadibna inaan Talyaaniga ka sii aadan rabo. waxaa dhacday haddaba habeen hoteelkan ku degnay oo shirka oo ay nimankan odayaasha ku lahaayeen. goor habeenan waxaan arkay qof dumara oo qurux badan labisan oo si gaara u fiirsanaysa ninka agaasimaha ah. habeenka ishaydu markay qabatay qofta dumarka ah, habeenkii labada aniga asagoo magaalada aan ahayn meeshaan deganayn ahayn baan aaday. waayo anigu waddanka guriguri baan u kala aqaanaa, 4 sanaan joogay. marka meeshii kale aan tagnay baa waxaan ka war helay buu yiri miiskaan fadhinay mid aan ka fogeyn qoftii aan xagga kusoo arkay habeenkii hore fadhida moogta, waana keligeed. markaas waxaan wargashu yiri, waxaan ku iri qofta moogta xalayna halkaas joogta caawana wata moogta. markaas uu maxaa aday isha si gaar ah aday kula socotaa baan ku iri. markaas wuxuu yiri raallahu intuu isagu u tago miiskeeda ugu tagay wuu isbaray. wuxuu yiri aadan diidaray nala soo fariiso annaga ninkan odayga hadaad raalli ka tahay. waxay tiri may keligay baan waan diyaar baan u ahay. way soo kacday way nala soo fariisatay. ninkan marka odayga waa nin dhowr luqa ku hadluu yiri oo furfuran reer magaala. gabadhii asagii si fiican bay sheekada iskula heleen. anigu waxaan fiirinayaa ayada su'aalahay weydiinayso, siday u hadlayso, hadalladay dooranayso, dhaqankeeda. waxa dhacday buu yiri inay si furfurnaana ay su'aalo talantaale ah ay wax ku raadinayso baa ii soo baxday. ninkan odayga wuxuu u sheegay inuu dhakhtar yahay, shirkan meesha uu yimid. aniga markii la ii weydiiyey waxaan sheegtay inaan warbaahinta Talyaaniga u shaqeeyo, Talyaaniga deganahay. ayadu waxay noo sheegtay inay tahay macallimad waddankan Ingiriiska wax ku soo baratay, jaamacadaha waddanka ku yaal ay macallimad ka tahay. adugu hadalkii iyo isfahamkii weliba ninkii odayga ahaaya ayadu way isku soo dhawaadeen buu yiri, aad bay u sheekayseen. waxaa dhacday muddo markaan wada fadhinay inay u baahnaatay inay suuliga aada moogta. suuliga markay aaday boorso gacanta ay wadatay bay uga tagtay yiri dhinaceeda. mar alla markay kacdo suuliga dhinaciisa ay u dhaqaaqday, anigu boorsadan hore ka soo dafuuy sidaasaan u furay. waxa ugu horeeya aan la soo baxay aan helay waxay ahayd buu kaarkeeda aqoonsiga moogta. kaarka markaan la soo baxay waaba qoftan waa sargaalad ka mid ah ciidanka nabad sugidda moogta. ayadu suuliga markii geli lahayd bay waxay ogaatay inaysan wadan boorsada. orodkay soo laabatay anoo boorsada ayoo kaarka akhrinaya iigu timid buu. hal mar bay iga daftay boorsada iyadoo gubanayso xanaaqsan. ninkii odaga ila fadhiyay agaasimaha abaa wuxuu yiri canaantay raalli geliyay, annagoo raalli geliyay buu yiri. suuligeedii bay aaday. markay soo baxday
inay na soo aado iyo inay toos u baxdaba isku qabato ninkii odaga agaasimihii baa ka daba kacay soo ceshay raaligelin baan siinay markay soo firsatay waxay tiri haddaba ima qala ciddaan ahay wada ogtihiin anna waan ogahay waxaad tihiin ninkaan baanse u baahanay inaan helo warbixintiisa rasmiga marka waxay wada tahay buu yiri waftiga yimid oo saddexda nina iyo agaasimaha magacyadooda way wadataa way haysaa waxaysan hayn oo meesha ka soo baxay waa aniga bay tiri oo qof lagu talagalhayana aanan hayn mogta anigu meeshadii baan istaagu yiri inaan ahay sidaas halkaasna aan u socdo mogta ma bedelin sheekadaydii ayadii hadalkii baa noo furfurmay waxa dhacduu yiri ninka odaga ahaa inuu si gaara u marti qaaday habeen dambe inay la cashayso mogta waxba kama qabay tiri laakiin goobta aan hadda ku kulmayno meel kale baan aadaynaa meeshii kale kula ballantay sidii baan kusoo kala tagnay habeenkii labaad markii la gaaray anigu waa ka haru yiri waxaan ku iri dhegayso qoftan waxaan rabnaa inaan gacanta ku dhigno ay nala shaqayso kowle ayadoona sidoo kale ay rabtaa waa uur bay raadinaysaa haddaba waxaan rabaa cashada marka u tagtay anigu ku raaci maayo adaa u tagaya waxaad ku leedahay hawshaasaan kaa rabnaa agaasimi wuxuu yiri anigu hawshaan ma geli karo mana oran karo waxaan ku yiri haddaadan oran karin marka aniga ii ballami habeen dambe ninkaasaa ku baahan ku marti qaaday waxbuuna ku rabaa inuu kaa warayso ku weydiiyo sidii bay habeenka cashada waxaana u sameeyey buu yiri markuu u tagayay boqoshad baan lacag ugu ridnay suuriya habeenkii markay wada casheeyeen boqoshadeedii buu siiyey aad bay uga heshay u faraxday markaa kadib wuxuu u sheegay inaan habeen dambe kulmayno haddana ninkaa odaga aanu si gaara ugu rabo mogto markaasay tiri ninkaan ma fahmin ninkaan shaqadiisa rasmiga ma aqaan wuxuu rabo maxay tahay ood igala hadlaysid agaasimi wuxuu yiri asagaa kuu sheegay hadda ninku ilaa aan warbixin buuxa ka hela lama fariisan karay tiri wuxuu yiri warbixintiisa asagaa kuu sheegay waxaad rabtid inaad weydiisay wuxuu yahay markuu habeen dambe is aragtaan baa ka wada hadlaysa sidii baan habeenkaas ay ku kala tageen meel kale ay nagu ballamisay meeshii baan tagnay hadalkii baan noo furmay anaa la hadlay waxaan u sheegay labada wadan inay laba wadan oo jaar ah walaala ay yihiin wax tenshina ama wax ka dhaxeeya inuusan jirin waxa kaliya aan tirsanayna waxay tahay in dad mucaarada iyo unugya la shaqeeya ay halkan aan ku tuhumayno marka si toosan u abaaro waxaan yiri qof yahay sargaalad baa tahay anagu ku oran mayno wadankaaga iyo waxa ka jira noo sheeg ama nagala shaqo waxaan ku leenahay kaliya waxa anaga nagu ah Soomaalida arag cadawgeega ah ama cadawgeega la shaqeeya ama gacmaha shisheeyo oo wadankiina ku sugan kuwaasaan rabnaa inaad nagala shaqaysid annaguna wixii ku saabsan wadankiina inaan idinkala shaqaynaa rabnaa waxay tii intaan wax walba aanan kaala hadlin still waxaan kaaga baahanahay inaan helo cidda aad tahay waxa uu sheegu yiri la taliya inaan ahay wasaaradda amniga aan ahay madaxa wasaaradda wixii kale aad u baahan tahayna haddii aad diyaar u tahay hawsha inaan wada galno aan miska ugu soo saarayo mogta gabadhi waxay tiri hawshan waan kasoo fikirayaa waqti isii intaa ku siinaa laba habeen isii bay tiri laba habeen kadib aan isku nimaan habeenkaas waa habeenka berri subax oo kale ay bixi lahaayeen waqtigu laaban lahaayeen isla habeenka waxaan kaloo wadnaa buu yiri bulshada aan lacag ugu soo riday sidii baan waxayda ku siinay kasoo laabanay waftigii la socday agaasimaha waan dirnay agaasimihii baa ka haray waxaan qoraal ugu dhiibay buu yimid mid kamid ah waftigii baan qoraal xamar ugu dhiibnay aan leenahay xubintii aan anigu hoos tagay gaarka ahayd u geey mogta sidii baa loogu geeyay waxaan codsanaynay buu yiri dhaqaale aan rabo inaan qoftaa kusoo xiri gelino mogta maalintii ku xigtay waa naloo soo duulay buu meeshaan naloo ku yimid waxa yagana waa naloo keenay
laba habeen kadib baan qoftii la ballanay meel kale ay nagu ballamisay meeshii markaan tagnay waxay tiri wax walba diyaar baan u ahay 2 condition baan wataa mid waa xagga waxay tiri waxaan rabaa inaan ganacsi aan leeyahay samayso sidaa midna waxa weeye ninkan odayga ah oo agaasimaha in loo soo magacaabo safiirka Soomaaliya ee Nairobi fadhiya si aan ula shaqeeyo waxay warbixina aan asaga ugu gudbiyo waayo mar rabay tiraan xiriir banaanka oo inaan galo waxaan siiyay telefonka Talyaaniga oo kala weydiiday imana soo wixii ka dhig kuma soo wacayo meel kale aan waci maayo toos xiriir ah oo qof la kulana ma ahana wax kala gali maayo waxaan ku dhuuriyay labada aad codsatayba diyaar baan u nahay si aan marka hawshu u bilowno anagu waa laabanaynaa waxaan ka rabnaa oo hadeertan meesha u joognaa waxa weeye xubnaha haddaba waddankan ka howlgalay oo mucaaradka ah iyo dhaqdhaqaaqooda waad haysaan nawada si ku oromayno wixii aan ka heli karno si aan ugu celino aan madaxyada ula tagna moogta wax walba oo ku baxayo qarashaada ama aad uga baahan tahay hawshaas la diyaar baan kula nahay waxa tir waxba kaba qabo waxa isiisaan 2 habeen oo kale moogta 2 habeen oo kale aan siinay habeenkii saddexaad banaanka way nagu ballamisay meeshii baan tagay waxay wadaaba yiri 2 sano warbixintooda wax ku dhow warqada ah annaguna waxaan u wadnaabi wax aan siin lahayn moogta sidii baan wax isku weydaarsanay subaxdii ka xogtayna xamar baan soo galnay safarkayga Talyaaniga waa baaqday xamar baan la soo laabtay xubintii madaxda u ahayd baan la fariisay u gudbiyay maalintii ku xigtayna aniga agaasimiye waxaan noo yeeray madaxweyne aad buu naloo ku mahad ceshay waxaan soo helnay dokumentigan geynay waxa ku qornaa buu yiri xubnihii mucaaradka ee Nairobi saldhigtay ama soo maray meelaha ay galeen ciidaha ay la kulmeen safaaradihii ay warbixinada la yeesheen waxa ku jira buu yiri dad aan siyaasadda ku jiro ganacsato ay dhaqdhaqaaqooda oo kale kuwa lacagta bixiya kuwa muddo 2 sano ah baan warbixintan ka helay xafiiska markaan intaa geeyay madaxweynuhu aad buu ugu farxay wuxuu si gaar ah hadiyad ugu soo diray buu yiri gabadhii moogta Soomaaliya waxa kale oo la ballan qaaday safiirkii in ninkan loo magacaabay anoo wiigban Muqdisho kala soo joogay wiig kadib baan soo laabtay anoo hadiyadii gaarka ahayd oo loo wada la soo siiyay baan gacanta ka saaray way qaadan weyday in madaxweynihii waddanku si toos ah hadiyad ugu soo dhiibay ayada moogta Soomaaliya waxayna noo sheegtay inay 100% ku faraxsan tahay hawshii ay rabtay oo inay samaysan rabtayna ay guda galayso ganacsi u gaar tii ahayd ma garanaysaa wada shaqayntana ay sugayso ninka odag oo loo soo bedelo sidii baan waxaan ugu soo laabtay yiri waddankii Talyaaniga marka qaybta labaad wixii ka dhacay qofkaas iyo shaqadeedii waxa ay noqotay ajalka labaad baan ku soo qaadanaya